Vocabulary preview. Horudhaca ereyada. Library. Goobta buugaagta lagu akhristo. Exam. Imtixaan. Study. Waxbarasho. Subjects. Maadooyinka. Together. Wadajir. Quiet. Aamusan. Notes. Qoraalada. Dialogue with Somali translation. Wadahadal Soomaali ku turjuman. Are you going to the library today? Ma u socotaa maktabadda maanta? Yes, I need to study for my math exam. Haa, waxaan u baahanahay in aan u diyaar garoobo imtixaanka xisaabta. Me too, maybe we can study together. Anigana sidoo kale. Laga yaabee in aan wadajir wax u barano. That's a good idea. What time are you going? Waa fikrad wanaagsan. Goormaad tegaysaa? I'll go around 3 p.m. How about you? Waxaan tegi doonaa ku dhowaad 3 galabnimo. Adiguna? I'll come then too. Let's sit in the quiet section. Anigana markaas ayaan imanayaa. Aan fariisano qaybta aamusan. Great, don't forget your notes. Way wanaagsan tahay. Ha ilaawin qoraaladaada. I won't. See you there. Ma iloobi doono. Halkaas ayaan kugu arkayaa. Grammar focus future plans going to plus verb. Cashirkan naxwo ahaan wuxuu diiradda saarayaa wax mustaqbalka dhacaya. Examples from the dialogue. Tusaalaha aan kala soo baxnay cashirka waa sidan soo socota. Are you going to the library today? Ma waxaad u socotaa goobta wax lagu akhristo? I'm going to study for my exam. Waxaan doonayaa in aan imtixaanka iska akhriyo ama diyaariyo. We're going to sit in the quiet section. Waxaynu doonaynaa in aan fariisano meel xasiloon oo aan buuq lahayn. Practice questions. Tababarka su'aalaha waa in aad su'aalaha casharka ka soo bixiyey aad adigana isku daydaa oo aad badbadashaa. Are you going to study today? Ma waxaad doonaysaa in aad wax barato? Maanta. What subject are you going to prepare for? Maadadee rabtaa in aad barato? Who are you going to study with? Yaa wax kula baranayo? Where are you going to sit in the library? Halkee rabtaa in aad ka fadhiisato goobta wax lagu akhristo?